kadib laba askari oo staafka gudoomiyaha degmada ah oo isdhiibay gacmaha taagay la dilo oo waliba si arxan daraa loo dilay ayagoo la yaqaano inay askar dawladda ka tirsan yihiin waliba mid kamid ah uu booliis yahay isagoo gacanta taagayana xabado lagu oo muwaadiniin Soomaaliyeed oo kamid yahay gudoomiyaha degmada iyo gudoomiye ku-xigeenkiisaba waxaan maxkamadda si xushmad leh uga codsanayaa waxaan tusinay maxkamadda muuqaalkii dadkii uu dilay eedeysanaha koowaad oo wajiyadooda laga dareemayo rasaasta dhashiika sida ay u goysgoysay waxaan maxkamadda ka codsanayaa in eedeysanaha koowaad maxkamadda ay ku xukunto dil toogasho ah oo ah qisaasta 6 marxuun oo ku dilay goobtaas waliba waxaan maxkamadda ka codsanayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in loo fuliyo dilkaas uu geystay eedeysanaha dhageysiga garmaqalka dhanka ka ahaa 13 eedeysane ee goobjooga ka ahaa maxkamadda intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka